Hi, Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Welcome to channel interview question is isku soo dhawaada sharaxaada waxa weeye su-aalaha guud ee markaasi interviewga ama wareysiga guud ee ardayda ee lala yeelan doono arday kasta ka mid ah ardayda markaasi advanced ka haddii alla idmo su-aalaha waan sharxi doonaa kuley jawaabahooda midna kama jawaabi doono sharxad un baan sharxi doona uno keliya waana bogsinaya la soo insha allah tu horeyso waxaynu uga hadlaynaa ama su-aalaha waxay ku saabsan yihiin person itself يعني nolosha shakhsiga oo kale waa su-aalo qoseeya weeye su-aasha horeyso tell me about yourself ka sheekay ama ka waran yani ama wax iga sheeg yani waxa weeye nafsadaada de waxaa laga doonaya 1 daqiiqo 2 daqiiqo inaad nafsadaadii markaasi ka sheekayso labo do you believe with your parents waalidiintaadii miyaad la nooshahay dabcan dii hore aa usoo dhaxdo oo markaa nafsadaada ka sheekeynayso aad ku darto I live with my parents waxaa laga yaaba su-aasha in lagu weydiinin waayo hore aad uga jawaabtay funa uu maqlay su-aasha labaad what's your biggest dream in your life maxay rajada ugu weyn ama riyada ugu weyn ee noloshaada what is your biggest dream in your life waa maxay riyada ugu weyn ee noloshaada so wax adiga aad yani rajaynaysid mustaqbalka yani inaa noqotid ama inaa heshid oo kale waxaad ku riyoonaysid baad sheegaysaa su-aal ahaan my biggest dream is to be a doctor riyada ugu weyn waxa weeye inaan dhaqtar aan noqdo oo kale su-aasha afraad waxa weeye what's your strength yani maxaa adiga aad ku xoogan tahay strength means qofku waxa uu ku xoogan yahay oo uu ku fiican yahay su-aalaan qofku wuxuu dhihi karayaa I'm good at speaking I'm good at English speaking English I'm good at speaking English yani waxaan ku wanaagsanahay ku hadalka ingiriiska ku wanaagsanahay ama waxaad dhihi karaysaa I am good at يعني the skills okay learning the skills يعني waxaan ku wanaagsanahay barashada xirfadaha oo kale soo su-aasha shanaad iyadana waxa weeye what is your weakness yani waa maxay waxaad ku markaas adigu aad ku tabardaran tahay wax adiga aad ku liidato maxay yihiin so maybe wax adiga aad ku liidato aad sheegaysaa salaam waxaad dhihi karaysaa I am not good learning the languages I mean waxaad dhihi karaysaa I can speak English very well yani Englishka si wanaagsan ugu hadli karaa dhihi karaysaa oo sidoo kale waxaad dhihi karaysaa I am not good at okay appearing in front of the people yani kuma wanaagsan inaan kasoo muuqdo dadka hortooda oo kale yani adiga waxaad adiga ku lidataad sheegaysaa so su-aasha lixaad waxa weye what's your hobby maxay tahay rajada maxay tahay hobby means waxa weye waxyaaba adigu balwad ahaan caad ahaan adigu aad jeceshahay maxaa weeye su-aasha waa toddobaad waxa weeye what's a role model waa kuma qofka ku daynayso su-aashan waxa weeye waxaad ugu jawaabi karaysaa my role model is our prophet Muhammad okay peace and blessing upon him role modelkeygii waa nabigeena maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee okay aad dhihi karaysaa qaybtan waan ka gudbaynaa su-aalahaan waxaan u gudbaynaa waxa weeye education means waa su-aalo markaasi ku saabsan waxbarashadaada su-aasha horeysa waxaa lagu yidhi what's your native language waa maxay luqadda u dhalatay waa maxay luqadaad u dhalatay labo su-aasha labaad what's your English okay how is your English speaking waa sidee ku hadalkaaga ingiriiska waa sidee hadalkaaga ingiriiska so my English speaking is good aad dhihi karaysaa waa iska fududayn koo su-aalan aad ba iskaga saal yihiin su-aasha saddexaad waxa weeye how many languages do you speak imise luqadood baad ku hadli karaysaa how many languages do you speak imise luqadood baad ku hadli karaysaa su-aasha afraad waxaa lagu yidhi in level are you in level of secondary or university ma waxaad tahay yani qof levelkiisii dugsiga sare ah mise qof levelkiisii level jaamacadeed ah university yani waa jaamacad wey university waxa weeye jaamacad wey su-aashana waxa weeye how many subjects do you study yani waxaa loola jeedaa imise maadooyin baad markaasi aad barataa imise maadooyin ayaad markaasi aad barataa dabcan waxa weye su-aasha lixaad iyadana waxa weeye what's your favorite subject what is your favorite subject waa maxay maadadaad ugu jeceshahay or skill mise xirfadaad ugu jeceshahay so haddii maadaad jeceshahay maadaad sheegaysaa oo my favorite subject is English Arabic so ama my favorite skill is designing ama wixii lamid aad sheegaysaa su-aalaha markaan ka gudbaynaa qaybtaan oo gudbaynaa learning English waa barashada Englishka iyo markaasi su-aal ay ku saabsan yihiin learning meeshaasi G ayaa ka maqan insha Allah iska saha su-aashkooda waxaa lagu yidhi can you speak English well ugu horeyn
Englishka si wanaagsan ma ugu hadli karaysaa ugu horeyn Englishka si wanaagsan ma ugu hadli karaysaa su-aasha labaad why did you prefer to study English maxaad u doorbiday maxaad u jeclaatay maxaad u doorbiday yani English inaad barato why did you prefer to study English inaad barato maxaad u doorbiday maybe waxaad dhihi karaysaa marka sometimes because English in a national language ama waxa weeye English is one of the important languages in the world okay so adigu jooskaasaad jeceshaa ugu jawaabi karaysaa de waxa weye su-aasha afraad waynu ka gudbaynaa su-aasha labaad su-aasha saddexaad aan su-aasha saddexaad waynu gudbaynaa waxaa inoo qoran meesha waxaan ka rabaa marka inaad ka dhigitiin what is the importance stana kareeba marka waa su-aasha waxaad sheegaysaa muhiimada markaas ay leedahay barashada ingiriiska what is the importance of learning English waa maxay muhiimada ay leedahay barashada ingiriiska so what is ka dhigta meeshan ka tira oo importance bis ha noqoto muhiimada English ay leedahay waa maxay muhiimada barashada ingiriiska yani muhiimada barashada ingiriiska yani aad sheegaysaa oo danta ku jirto yani English waxa loo baranayo number 4 waxa ku oran are you good at English grammar miyaad ku wanaagsan tahay barashada ingiriiska miyaad ku wanaagsan tahay naxwaha ingiriiska are you good at English grammar miyaad ku wanaagsan tahay naxwaha ingiriiska maybe yes I am good at English grammar adii karaysaa ka soco su-aasheeni shanaad waxa weeye can you tell me meeshay karaysaa the 8 parts of speech isdeed qaybood ee hadalka the 8 parts of speech waxa weeye sideed qaybood hadalka meeshay karaysaa sideed qaybood hadalka kulay ardayda qaarna mubasharada way qaateen so sometimes waxa laga yaabaa so waxa weeye 8 part of speech ku waxaad ka bilaabaysaa okay the 8 part of speech are noun pronoun adjective adverb verb preposition conjunction so yani saas u wadaysaa sideedaas sheegaysaa ka soco okay hobbies waxa weeye waxyaabo markaasi qofku markaasi uu ka helo ama yani uu markaasi ama uu ku rajo weyn yahay taban inuu markaasi uu noqdo ama hobbies waxa qofku interest gariya ama waxa uu xiiseeyo hobbies la yiraahdo yani waxbaas maalin la u sameeysa kama maarantid wixii marka waa hobby waxaasi marka waa yani your hobby way yani waxa adigu marka interest garinaysa dood ka aad helaysid way maalin waliba okay su'aasha koowaad marka waxa weeye what are your hobbies waa maxay waxyaabo markaasi aad ka hesho oo markaasi si joogto ah aad u sameyso okay su'aasha labaad waxa weeye you expecting to be a teacher Chinese macallin inaad noqoto su-aasha saddexaad no waxay ahayd su-aasha labaad you expecting to be a teacher ma rajaynaysaa markaasi macallin markaasi aad noqoto okay su-aasha kale iyadana marka waxay noqonaysaa su-aasheenii kale dabcan waxay markaasi ay noqonaysaa are you expecting to go abroad ma rajaynaysaa dibad inaad aado are you expecting to go abroad ma rajaynaysaa yani dibad markaasi inaad aado ma rajaynaysaa okay su-aasheenii kale iyadana waxay noqonaysaa dabcan su-aasheenii kale iyadana waxay noqonaysaa do you like traveling yani ma jeceshahay markaasi safarka ma jeceshahay do you like traveling ma jeceshahay safarka so su-aashanaad iyadana waxa weeye what are your plans for your holidays what are your plans maxay qorshooyinkaagii okay waxa weeye for holidays ee maalmahaagii fasaxa qorshooyinkaagii waxyaabo markaasi yani adiga markaasi aad leedahay qorshe ahaan maxay yihiin yani what are your plans waa maxay markaasi qorshooyinkaaga okay for your holidays maalmahaagii markaasi fasaxa yani waxaad sheegaysaa markaasi maalmahaagii fasaxa waxaad adiga ku qorshaysa marka inaad sameyso waxaan gudbaynaa su-aalaha qaybta dambe ayaynu markaas aynu gudbaynaa insha allah alright su-aalaha qaybta dambe dabcan qaybta dambe su-aalaha waxaa ku qoran su-aalahan qaybtan waxay noo qoran waxaa loo yaqaano at the airport yani waxa weeye yani waa garoonkii baa la joogaa diyaaradaha at the airport yani waa waxa weeye waa garoonka diyaaradaha waa joogitaanka marka aad joogto waxa weeye garoonka diyaaradaha so marka horeysa su-aasha horeysa marka lagu weydiin karaya waxa weeye can I see your passport yani waxa lagu dhigi karaya passportkaaga ma arki karaya can I see your passportkaaga ma arki karaya number 2 waxa lagu weydiin karaya what is the purpose of your traveling what's the purpose waa maxay ujeedada of your traveling ee safarkaaga ereyga traveling means waxa weeye waa safar weeye yani okay traveling means waxa weeye waa safar weeye okay what's the purpose of your traveling
maxay markaasi ujeedada yani safarkaagii su-aasha labaad waxa weeye su-aasha saddexaad waxa weeye aan dhehe how long are you planning to stay there ilaa intee baad rajeynaysaa markaas halkaa aad soo joogto how long yani ilaa intee are you planning markaas aad qorsheynaysaa to stay there halka inaad soo joogto su-aasha afraad waxa weeye have you ever visited okay weligaa ma booqatay yani meeshan waxaa loogu talagalay magaalo magaceeda loogu talagalay halkaas in lagu buuxiyo tusaale have you ever visited Mogadishu before yani weligaa ma booqatay Muqdisho yani hadda ka hor yani ugu dambeyn okay waxaa lagu leeyahay su-aasha shanaad waxa weeye when will you return waa dib usoo laabasho when will you return to your home goorma dib ugu soo laabanaysaa gurigaagii goorma dib ugu soo laabanaysaa waan ka gudbaynaa su-aalahaas waxaan u gudbaynaa at restaurant waxa weeye at restaurant waxa weeye yani waa maqaayada joogtaa so marka su-aalo baa jiro markaasi qofka waiterka ama kabayariga markaasi uu ku weydiin doono su-aasha horeysa wuxuu ku leeyahay what kind of drink would you interest abitaan noocee ayaad markaasi aad xiiseyn lahayd aad yani xiiseynaysaa okay what kind of drink abitaan noocee would you interest markaasi aad xiiseynaysaa su-aasha labaad waxa weeye what kind of food would you like yani cunto noocee ayaad markaasi aad jeceshahay what kind of food would you like cunto noocee ayaad markaasi aad jeceshahay cabitaan aad xiisisid ayaad sheegaysaa inta markaasi cunto aad markaasi aad xiisisid ayaad sheegaysaa tusaale waxaad leedahay I would like rice okay I would like rice waxaan jeclaan lahaa I would like to eat rice waxaan jeclaan lahaa bariiska inaan cuno I would like to eat spaghetti ama pasta okay waxaan jeclaan lahaa pasta markaasi inaan cuno ama I would like to eat sorghum waxaan jeclaan lahaa inaan markaasi aan cuno waxa loo yaqaano soorta oo kale okay su-aashani saddexaad waxa weeye tell me some your traditional foods in your country yani in waxaa lagu yidhi ii sheeg qaar ka mid ah cunto dhaqameedyada waddankaagii lagu cuno yacni cuntada markaasi cunto dhaqameedka ama waddanka markaasi u gaara cuntooyinka waddanka lagu cuno oo yacni ii sheeg okay so cuntooyinkaas waxaa kamid ah tusaale ahaan soorta iyo amboolada iyo waxa weeye canjeerada oo kale kamid ah so marka soo raadso dabcan as English aan soo raadso sababtu maxay tahay adigu de waxa weeye dhaqan ahaan waxa waddankaaga lagu cuno cuntada baa ii sheeg lagu yidhi marka soo raad insha Allah waan ka gudbaynaa su-aasha okay su-aasha afraad baan u gudbaynaa how many times do you eat the food imise waqti baad cuntaa baa lagu yidhi cuntada so marka imise waqti ayaad cuntada aad cuntaa haddii 2 jeer ay tahay haddii 3 jeer ay tahay haddii 4 jeer ay tahay adigaad garan wixii markaasi inta jeer markaasi aad cuntada aad cunto gudbaynaa su-aashaas waxaan gudbaynaa qaybaha kale ayaan gudbaynaa halkan waxaa inoo qoran daily routines means waxa weeye waxyaabaha sida joogtada ee sida maalinlaha markaasi aad u samayso su-aalo baa lagaa weydiin doonaa su-aasha ugu horeyso waxaa lagaa weydiin doona waxaa kamid ah what time do you get up every day kuma ayaa soo kacdaa waqtiga ayaa soo kacdaa maalin waliba waqtigaa sheegaysa marka hadduu yahay 7 o'clock 2 o'clock 8 o'clock 10 o'clock 5 o'clock yacni so waqtiga unbaad sheegaysaa su-aasha labaad waxaa lagu yidhi do you always go to school mar walba iskuul ma aadaa ama kuleysaa ugu jawaab lahayd waad garan oo iska fududahay jawaabteedana you always go to school waan ka soconaynaa su-aasheenii waxa weeye su-aasheenii saddexaad waxa weeye how do you go to school haddaa iskuul aado sida ku aadaa iskuulka by bus miya mise on foot yani mise on foot yani mise lugtaad ku aadaa so adiga kuley jawaabteedii adiga lagaa doonaya in markaasi aad bixiso okay su-aasha afraad waxaa lagu yidhi what time waqtigee okay do you go to school ee iskuulkaad aadaa what time do you go to school waqtigee baad iskuulkaad aadaa what time do you go to school waqtigee baad markaasi iskuulkaad aadaa su-aasha afraad what do you often do in the afternoon maxaad samaysaa badanaa gabdhihii maxaad samaysaa what do you often do maxaad samaysaa badanaa in the afternoon yacni gabdhihii maxaad samaysaa alright waan ka gudbaynaa su-aasheenii markaasi waxaanu gudbaynaa lixaad baynu u gudbaynaa su-aasha lixaad waxaa inoo qoran what do you often do for the weekend maxaad samaysaa badanaa usbuucii oo idil maxaad samaysaa okay what do you often do for the weekend maxaad samaysaa badanaa waxa weeye usbuucii oo dhan maxaad samaysaa yacni weekend waxaa la yidhahdaa toddobaadka oo dhan weeye alright waxa waan ka gudbaynaa qaybtaas oo dhan waxaan u gudbaynaa qaybta ku xigta waa asking for time waqtiga ayaa markaasi wax laga weydiin doonaa haddii aan la idmo so waxaa loo leeyahay marka waqtiga lagu weydiinayo dabcan su-aalaha lagu weydiin doona waxaa kamid ah qof wuxuu ku leeyahay could you tell me the time please ma ii sheegi karaysaa waqtiga fadlan could you tell me ma ii sheegi karaysaa the time waqtiga please
يعني فضلا يعني could you tell me the time please may sheegi karaysaa waqtiga fadlan okay alright su-aasha xigta waxa lagu leeyahay what time do you get up waqtiga ayaa soo toostaa hurdada markaasi aad kasoo kacdaa what time do you get up waqtiga ayaa soo toostaa su-aasha kale waxa ugu dambeyso at what time do you go to school waqtiga ayaad markaasi iskuulka aadaa at what time do you go to school waqtiga ayaad markaasi iskuulka aadaa alright waxaad sheegaysaa marka horeyso waqtiga isla markaas aad joogto interview laga qaadayo saacad waxay tahay sidoo kale xilliga subax kasta aad soo kacdo sidoo kale waxaad sheegaysaa waxa weeye waqtiga markaasi iskuulka hadda iskuul aadan aadanin waxaa leedahay excuse me I'm not a student I don't go to school يعني anigu igraan anigu de arday mihi school ma aada leedahay markaasi go ahead ku soco okay waxaan gudbaynaa shopping for clothes يعني ibsashada waxa weeye ama tukaameysiga dharka ayayna gudbaynaa su'aalaha lagu weydiin doona carruurta markaad tagto waxaa kamid ah what would you like to buy please maxaad jeclaan lahayd inaad iibsato fadlan maxaad jeclaan lahayd inaad iibsato fadlan su-aasha kale waxa weeye iyadana waxaa adigu jeclaan lahayd aad sheegaysaa xijaab aad rabto haddii waxa weeye shaati aad rabto haddii fanaanad aad rabto haddii jaakad aad rabto dharka noocyadiisi kala duwan markaasi in adigu baaritaan aad ku samayso aad raadiso wey haddii gobol kale aad ku qorto waxa weeye clothes for women okay for women ama clothes for men yani okay yani nimankii naaga inaad waxa weeye haddii wiil aad tahay dharka nimanka raadin haddii gabar aad tahay dharkii markaasi gabdhaha hadduu markaad raadin marka waa de waxaad helaysaa nooc kasta aad xiran tahay magaciisa waxaa english lagu yidhaahdo su-aashan waxaa lagu yidhi marka okay which color midabkee would you like aad jeclaan lahayd kabaad dooratay kabaha gaduud ee cadaan waxbay u kala baxeen kalarkeed jeclaan lahayd lagu leeyahay kalarkeed dooranaysaa my favorite color is green pink white blue light kalarkaad jeceshaad dooranaysaa su-aasha daad waxa weeye do you like ma jeceshahay any of these kuwani mid kamid ah ma jeceshahay kuwani mid kamid ah dhowr shay baa laga yaaba in lagu soo qabto lagu yiraahdo do you like any of these ma jeceshahay kuwani mid kamid ah okay ugu dambeyso what size yani sizekee ama cabirkee like aad jeceshahay my size waxaad dhigi karaysaa my size is 36 okay 42 41 34 35 adigu marka okay sizeka aad sheegaysaa ama waxa weeye sizeka adigu aad ka heshaad jeceshaa aad markaasi aad jeceshahay aad markaasi sheegaysaa ka soco halkan waxaa inoo qoran weather means waa jawi weeye alright marka weather waxaan leenahay markaasi jawi baynu leenahay so marka su'aalaha laga weydiin doona jawiga waxaa lagu leeyahay how is the weather today waa sidee jawiga maanta how is weather today waa sidee markaasi jawiga maanta how is weather today waa sidee jawiga maanta okay su-aasha kale lagu weydiina waxaa weeye do you like ma jeceshahay hot weather jawiga markaasi kulul or mise cold weather mise jawiga markaasi qabo maxaad jeceshahay waxaad dhigi karaysaa marka I like hot weather mise I like cold weather okay su-aasha saddexaad waxaa lagu yidhi how is the weather waa sida jawiga in summer xagayga marka lagu jiro jawi waa sida summer means waa xilliga xagayga weye how is the weather waa sida jawiga in summer xilliga markaasi xagayga lagu jiro waa sida jawiga su-aasha kale waxaa lagu yidhi how is the weather sida markaasi jawiga in winter jilaalka marka lagu jiro winter means waa jilaal weye marka winter jilaalka xilli waa sida jawiga yani waxa weye in winter jilaalka marka lagu jiro yani jawi waa sidee next waxaa noogu soo xigo su-aal u eg waxa weye su-aasha shanaad weye how is the weather waa sida markaasi jawiga in spring yani xilliga guga lagu jiro waa gu wey yani spring waa gu xilliga guga wey so marka waxaa leedahay how is the weather waa sida markaasi jawiga in spring yani xilliga guga yani waa sidee jawiga waa sidee su-aasha lixaad how is the weather waa sida yani jawiga in autumn yani xilliga markaasi deerta yani waa sidee markaasi jawiga waa sidee marka baaritaan samaynaysaa yani waxaa samaynaysaa xilliga jilaalka iyo xilliga xagayga jawigu siduu yahay xilliga jilaalka jawigu siduu yahay yani xilliga markaasi guga yani aan dhehe yani gugaha siduu jawigu yahay okay xilliga markaasi jilaalka aan dhehe deerta yani sida jawigu yahay baaritaan baa samaynaysaa keliya mobile haddaa haysto ChatGPT aad geliso waqtiyadan oo dhan waa lagu sheegaya waqti kasta siduu yahay qaabkuu yahay baa lagu sheegaya right ka soco su-aasha u dambeyso
how is the climate of Somalia? Waa sidee cimilada Soomaaliya? Ereyga marka climate yani waa cimilo weeye. Ereyga weatherna waxa weeye waa jawi weeye. Saas u kala duwan yihiin. Ugu dambeyn qaybta ugu dambeysa waa talking about family, ka hadlida markaasi laga hadlayo qoyska marka. Waa su'aalo ku saabsan qoyskaaga ayaa lagu weydiin doonaa ugu dambeyn. Talking about the family yani waxa weeye ka hadlida markaasi laga hadlayo qoyska markaasi laga hadlayo. All right. bal marka su-aasha horeysa lagu weydiin doono wuxuu noqonayaa tell me qof wuxuu ku leeyahay su-aashana ugu muhiimsan marka waxaa lagu leeyahay tell me a bit about you su-aalaha dhantana soo koobayso waxaa lagu leeyahay tell me a bit about your family bal qoyskaaga ka sheekeey qoyskaagii yani ka sheekeey so marka waxaa qoyskaaga ka sheekeynaysaa tusaalahan يعني haddii TikTok aad isticmaalayso qaybtaas sare searching ku qor my family kadibna waxa weeye casharo badan dhammaystiran arkaysaa in yar baad ka bedelinaysaa familka meeshuu ku nool yahay aad kaligay aad sheegaysaa yani inta number uu yahay yani sida markaas ay yihiin so dabcan caawinaad baad helaysaa halkaasna adiguna iskaaga familka waa ka sheekeyn karaysaa su-aasha labaad waxa weeye how many people are there in your family imise qof ayuu yani familka uu ka kooban yahay imise qof markaasi familka uu ka kooban yahay okay su-aasha waxa weeye ku xigto waxaa lagu yiri meeshan waxa weeye waxaad sheegaysaa su-aashan u laabto su-aasha labaad how many people are there in your family qoyskaaga imisa dad ama imisa qof ayuu qoyska uu ka kooban yahay ama su-aashan ka tagin halkaas inoo siiya yani waxaa leedahay 8 members okay my family consists of 8 members my family qoyskaygii consists of wuxuu ka kooban yahay 8 members yani 8 xubnood ayuu ka kooban yahay masalan waxa weeye 12 ama 11 ama 13 ama 15 waxa adiga qoyska wuxuu ka kooban yahay marka su-aasha markaad jawaabayso my family consists of inaad dhahdo muhiim weeye ugu dambeyn su-aashan waxaa iyadana waxay tahay where does your family live xagee qoyska uu ku nool yahay Badweyn City Mogadishu City adaa sheegaya dee meeshaad marka qoyska uu ku nool yahay ugu dambeyn do you live with your parents waalidiintaadii miyaad markaasi aad la nooshahay do you live with your family waalidiintaadii miyaad la nooshahay aad mahadsantihiin waa intaa oon oo keliya journaalkan ugu talagalnay general interview questions oo ardayga si iskiisiya markaasi su-aal walba uu jawaabi doono isagoo markaasi wax jawaab aanan siin laakiinse isaga uu soo diyaarinayo si markaasi hadalkiisi markaasi uu sare ugu qaado aad mahadsantihiin okay inshallah